jaamac laftirkiisa runtii aniga aad ii qiiro geliyay marka human resource management wax la yiraahdo uu ka sheekeynayay waayo abuuritaanka qofka bilaadanka ilaahay baa ku shaqo leh laakiin ilaahay markuu ifka keeno juhdi baa la geliyaa juhdigii buu ka sheekeynayay qiimaha iyo tayada ay leedahay marka maadaama waxa la siiyay ay yar yihiin laba eray baan oranayaa oo midna waa dardaaran aan siinayo dhalinyaradan midna waa mahadnaq ilaahay baa loo mahadnaqaa laakiin dadaalkii dan iyo duco ay lahayd waxaan uga mahad celinayaa dadaalkoodu inuu noogu yimid Yurub tusaale yarna waxaan rabaa inay inamadu qaataan maalin maalmaha kamid ah dadkeena hadda intan jooga dhamaanteen Yurub wayn wada aragnay Yurub waxa ka dhaca qabow aad u xun haddaan idin qiyaasadee ma ka sheekeyn karta waa qof lagu xidhay un talaagad dabadeetana nin waayeelo 70 jira ayaan dariiqa ku arkay si fiican baan isu naqaanaa magaaladu waa Birmingham dadana waxaan ku dhahay adar ii waran inaan magac dhabo ma rabo markaasuu igu yiri maxaa ku soo saaran ku dhaadar aad bay u qabowdahay wuxuu igu yiri contribution-kii igu qornaa ee dan iyo duca iga sugasay baa qabowga ii soo saaray waxaan leeyahay odaygaas contribution-kii uu bixiyay iyo 100% gudoomiyaha aad nasiibka u hesheen Cabdishakuur Maxamed Cidin intaasoo la isku daray baad halkan ku soo gaadheen habaqanina hana is oranina halkaas ku kala tagaysaan ilaa heer jaamacadeed waa la daba taagay idinkana waxa la idinka fadhiyaa inaad barito soo celisaan wixii la idin gashaday tusaalaha odaygaasi dadka idinka garan maayo laakiin waxa gaaray dadaalkii dan iyo duco ee daafaha adduunka qayladhaantiisu ay ka dhacday ayaa halka ugu tagay tiina maanta iyagu way ku farxayaan ilaahay jasaakallahu khayr wa jazaa baan leenahay ilaahay haydika abaan mariyo taa dubireed iyo tan dabeel weynaba idina taas un xajista inankii qiiro geliyay yiriyaan barta ku kala tagin iyo Mustafa Jabi arrinkii uu lahaa waxa way qaylinna dardaaranka midna idinka leh dadaalkana ilaahay baa laga helaa waa la idin daba jooga ilaa heer jaamacadeed waad gaadhaysaan waqtiga kooban waan idin salaamayaa dhankiina wax ka soo celiya assalaamu calaykum wa rahmatullahi